agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa maanta furay kulan lagu go'aaminayay kala mudnaansiinta ama kala horreysiinta qorshaha labaad ee horumarinta qaranka Soomaaliland. kulankan oo ka qabsoomay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen agaasimayaasha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo biyaha, badi agaasimayaasha waaxaha qorsheynta ee wasaaradda dalka iyo sidoo kale khubarada qaybta ka ah diyaarinta qorshaha horumarineed ee qarankani leeyahay. ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay ujeedada kulankani agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta mudane Mubaarak Cabdullaahi Ibraahim Daljir, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidaynu la wada soconno in muddo waxaynu soo wadnay maadaama aynu ku guda jirno fulintii qorshaha horumarinta qaranka, mashaariicda la fulinayo iyo prioritiska aynu awoodda saarayno sidaynu u kala horreysiinayno ama sidaynu mudnaanaha u kala horreysiinayno ayaynu muddo ku soo guda jirnay ilaa 2 bilood ee ugu dambeeyay. wadaaga kasta iyo maxay ahayd sector kastaba waxa uu soo gudbiyay wixii ay u arkayeen mudnaanta ahayd muxuu ahaa in awoodda la isugu geeyo oo ay noqdaan waxa ugu horreeya la fulinayo. marka mudnaanahaas aad soo gudbiseen wasaarad qorsheyn ahaan iyo khubarada muxuu ahaa la shaqaynaysa dabcan waa la lafaguray, waa la falanqeeyay, waa la soo shiilay. marka maanta waxaynu halkan u wada fadhinaa inaynu maxay ahayd mar labaad si aynu isla hubinno inaynu maxay ahayd isla falanqeyno, isla lafagurno, dabeetana aynu soo saarno wadaaga kasta wixii mudnaanta u ahaa oo ah kama dambays ama final. ujeedada guudaynu maanta muxuu ahaa halkan isugu nimi waa taas. intaasi kadib waxaa kulankani si rasmi ah u daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa muddooyinkii u dambeeyay wasaaradda qorsheynta iyo guud ahaan hay'adaha dawladdu waxay mashquul ku ahaayeen sidii qorshaha horumarinta qaranka ee labaad ee aynu samaysanay sanadkii 2017 sidii aynu mudnaan u kala siin lahayn higsiyadii iyo qorshayaashii uu lahaa. qorshahaasi muddo badan buu soo socday, wuxuu ahaa qorshe ka bilaabmay leefalka sare ee hay'adaha dawladda, madaxda hay'adaha kala duwan ee dawladda, wasaaradaha iyo kuwa madaxa bannaan ayaa la faguray. waxaynu soo daadajinay dabeeto gudiyada farsamada ee hay'adaha qaranku inay doodaha sii galaan oo ay kala hufaan mudnaana ay kala siiyaan qorshayaasha horumarinta qaranka ee aynu haysano. qorshaheenaasi muddadu socday waxaynu u baxnay dhammaan gobollada dalka ayaynu tagnay. gobol kasta waxaynu soo weydiinay waxyaabaha mudnaanta u leh. dabadeed sectorskii kala duwanaa inta ay isku tageen ayaa waxa ay soo qoreen waxyaabaha ay u arkayeen sectorkooga inay mudnaan u leedahay. mar haddii hawshaasi ay soo gabagabowday waxa muhiim ah hawshii aynu kala mudnaanta ku siinay qorshaha horumarinta qaranka ee labaad inaynu gabagabayno si aynu ugu raadino resources iyo maalgelin lagu hirgeliyo mashaariicda haddii la yiraahdo. kulankeena maanta markaa waa kulankii koowaad oo kulamo isdaba jooga oo aynu qaban doono wadaagayaasha kala duwan ee qorshaha horumarinta qaranka labaad uu ku saleysan yahay. waxa madasha fadhiisan hore u xusay wadaagaha arrimaha biyaha iyo fayadhowrka, wadaagaha wax soo saarka iyo deegaanka. ujeedada markaa shirkeena maanta waxa weeye mudnaanihii aad soo go'aamiseen ee aad soo gudbiseen aad soo diyaariseen in maanta la sii lafaguro, la qaada dhigo, la eego mudnaanahaasi inay waxyaabaha aad soo gudbiseen ay yihiin, dabadeed la go'aamiyo si ay u noqdaan mudnaanaha wadaagayaasha aad ka socotaan. inta marka aynu sameeyno ayaa dabeeto aynu markaa maalgelin iyo sidii qorshaha loo hirgelin lahaa hadii aynu geli doonaa. waxaan idinka filayaa in lafagur ballaaran ku sameeyaan qorshayaashii mudnaanta koowaad idin lahaa ee aad soo gudbiseen, isla markaana aad doodo waafiya ka yeelataan hadii la yiraahdo. maanta shirku way noo furan yahay. soo dhawaada. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. intii kulankani socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo ka hadlaya sidii loo kala horreysiin lahaa ama mudnaan loo kala siin lahaa qorshayaasha horumarineed ee qaranka Soomaaliland gaar ahaan qorshaha labaad ee horumarinta qaranka Soomaaliland.